walaalayaal waxaan ku noolnahay camal shaydaan oo been lagu qurxiyay waa quracdaas maran oo wax joogala iyo wax daaqa iyo wax dega ayaad isku haysataan waa nugu yariye kii horena waa banaanya taasiyaad ku wada jirtaan guryihiinii adduunsan dibna uma aragtaan weliina mid kale sii dishaana rabtaan walaalayaal maanta meeshaan aad joogtiin iyo casriga aad joogtiin iyo cimriga aad joogtaan meeshaanu galabta geesiga nabadda u baahanta geesiga dagaalka uma baahna waxaan rabaa inaan idin sheego gobolka hal geesiya laga yaqaana intaan ogahay halka geesiyo laga yaqaana waa ninka walaalkiis dila ninkaas geesi loo yaqaana maxaan sidaas u leeyahay dadka marka la sheekaysato tuulooyinka jooga dagaal oogayaasha yaqaaniin kuwa nabadda ka shaqeeya ma yaqaaniin nabadda kuwa ka shaqeeya oo u dhagan nugul ma yaqaaniin rag hadda tiro badan oo nabad loo aasayna ma maqal rag tiro badan oo liir ayagoo nabad ka shaqeynaya ku dhinteen oo la aasay gobolkan aad ugu ma maqal waa jiraan masa badna laakiin dad badan oo ayagoo colaad ka shaqeynaya ku dhintay oo loo aasay waa naqaanaa kuwa la dulmiyana waa naqaanaa oo ayagoo dagaal ku jirin la dilay dhinac kasta ha ahaadeen dadaan run isku sheegino been ay isku sheegaan waxaan idin leeyahay walaalayaalow waa naga garaad badantiin waana naga caqli badantiin laakiin waxaan u malaynaa mushkiladaa jirta u baahan in la baaro bahasha qabyaalad la yidhaah haddii caana lagu maalaayo oo wax lagu gaaraayo oo la kala adkaanayo oo dhul la kala qabsanayo oo sharaf la kala helayo waa soo aragteen nooma dhinna nabadda ma tijaabin karnaa waa naqaanaa ragga ama lugaha go'an ama gacmaha go'an ama madaxu maqan yahay dagaalada qabiilka ku dhaawacmay dhulalkaan jooga waa la wada yaqaanaa rag nabadda u gacmo go'an ma heli karnaa oo u luga go'a kuwa ilaahay uga fogaaday oo aan ogahay inaan niyadda ku wada haysaan isleediin hebel ninka leeraa meeshuu ku dhintay xumeeda meeshuu ku dhintay aad qalbiga ka wada ogtihiin oon afka laga sheegi karin ma ku bedeli karnaa kuwa aan dhahno hebel ninka leeraa meeshuu ku dhintay wanaagsaneeda oo fiicneeda ma ku bedeli karnaa mid kastoo idin ka mid ah waa dhibane gurigiisa tacsiya ka jirto si dadban iyo si toosan labadaba ninkii kaa dhintay nin maanta dhihi kara jihaad uu ku dhinto janno jira ninkii un raganimo iska dayayo un rabo inuu warka iska leexiyo waa dhihi karaa ama rabo inuu wiilal kale ku qaldo kuwa kale uu rabaa inuu qaldo say biri dagaalka u galabkaas wuxuu ninkaas rag dhalay ayuu ahaa reerka u dhintay aaw guriga reerka u dhis ninkii waa dhintay guriga reerka u dhisay aawe biilkii ilmihiisa reerka u qoray aawe masaajidkay u sadaqeeyeen aawe sharaftii ammaantii u yeeshay aawe walaalayaalo waxaan ku noolnahay camal shaydaan oo been lagu qurxiyay waa quracdaas maran oo wax joogala iyo wax daaqa iyo wax dega ayaad isku haysataan waa nugu yariye kii horena waa banaanya taasiyaad ku wada jirtaan guryihiinii adduunsan dibna uma aragtaan weliina mid kale sii dishaana rabtaan aakhiro cid lagu soo ammaanay oo qabiil u dhimantay haddaa ogtihiin ku dayda waa okay waa fiicanta qof qabiil u dilay laleeyahay alla ila ninkii hebel ahaa jannadii meel fiican inta aayad loo helo sheekh aayad kor saari karo waa fiican tahay wada hawsha niman guriga ku helay oo ku tacbaday oo ku xoolaystay oo ilmahoodii wax ku barteen haddaa aragteen wada hadday beddelkeeda toy qoomama tahay oo hooyadii wiilkeeda dhinta oynayso oo adiga walaalkaa waayo oynaysid oo midka cuuriyaankaahu shallaysan yahay maxaa jidkan ugu socotaa waxaan rabnaa bini aadam noolaan nahay caqliga iyo dareenka inuuna hogaamiyo ummadda ilaahay wuxuu garashada u siiyey inay go'aan ku gaarto waxaan aaminsanahay marka qabiilinta isku yimaado uu ku tashado aan reer hebel ku duulno waxay ku ballameen aan caqliga iska qaadno aan been isku sheegnay ku heshiiye walaalayaalow caadifadda waa fahmaynaa hal maalin ma baxayso beenta waa fahmaynaa hal maalin ma baxayso shaydaanka laftigiisu markuu kugu bato oo guri kaa dhisto ilaahay waa dhici kartaa inuu iimaanka hal mar kuu soo dejiyo laakiin tartiibay u badan tahay waxaan ogahay waxaa isku haysataan maanta qoladii faraha laga geliyo hal natiijo ay caaw la hoyanaysa ma jirto
hal xabo ilo hooyanaysa ma jirto waxa isku haysataan raganimo waa oo shaydaan qurxiye shaydaana qurxiye geesiga maanta meeshan ay u baahan tahay nin shaydaanka hortagi kara waa nin shaydaanka ku hor ordi kara ma nin shaydaanka inta ka soo horjeesta dhigi kara waaye walaalkay beenad ku socotaa dulmiyaad ku socotaa nin odagiisa gacanta ka qaban kara waaye oday wiilkiisa gacanta ka qaban kara waa waxaan la yaabay meeshaan dhiigga muslimka sida loo fududaystay ma aayadahan la isku raacsanayn oo dad aayadaha khilaafsanaa jiro ma waxaad aaminsantihiin in qaybadan ka mid ah gaala yihiin sidee ku dhici kartaa inaad masaajidkana aado halkaana qof walaalka ahoo muslim ah ku disho sidee isku qaban kartaa waxaa ka cararayso masaajidka ka gelaysid miyayna cadaab ahayn maxay yihiin waxa masaajidka loo galayo horta masaajidka maxaa laga rabaa masaajidka soo ilaahay naxariistiisa lagama rabo war ninka ragaya galabta inta go'aan qaatay yiraa colaadaas anaa go'aan ka gaaray anaa geesi anaa banaanka taagan qabiil ma ahi fidna ma rabo muxuu ka baqa miyaanay ahayn wuxuusan aaminsanayn ilaahay ballanqaadka u bixiyey inuu run yahay ilaahay ballantu qaaday inay run tahay miyuu qofkaasi ka shakisayo wuxuu isleeyahay waxaasniyow mise ballanta ilaahay waxaa kala weyn warka shaydaanka iyo muuqaalka shaydaanka oo aan natiijada lahayn walaalayaalow misena walaalayaalow adeerayaalow waxaan idinka baryaynaa nabadda qalbiga u fura dhib idin wax aad ka heshii weysaan idinma dhex yaallaan qalbigiinaa xiran qalbigiinaa nabadda ka xiran oo shakiyaa xiray shaydaanaa xiray shaydaanku wuxuu baxaa geesiga nabadda marka la helo taariikhdu xumaha iyo nabaddiidnimadu nin kastoo inaysa ku raacin ku dadaa